madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shir gudoomiyay kulan ay goobjoog ka wada ahaayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, taliska ciidanka xoogga dalka iyo mas'uuliyiinta Midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay isku duubnida dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab. Shirkan ayaa lagaga hadlayay howlgalka ka dhanka Al-Shabaab oo ay abaabulkiisu wado dowladda Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu uu hogaamiyo aanan u dul qaadan karin dhibaatada xarakada Al-Shabaab ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Mandela ayaa ammaanay isku duubnida dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ay muujiyeen si ay Al-Shabaab kaga guuleystaan. dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa dagaal ka dhan ah Al-Shabaab waxaana jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidanka dowladda Soomaaliya. kulankan lagaga hadlayay amniga ee ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen Midowga Afrika, madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan oo ammaanka lagaga hadlayay ay ka soconayeen xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale uu ku soo beegmayaa xilli dowladda Soomaaliya ay ilaamisay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab. عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي TV Universal مقالة مقدشو.